madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre khilaafka kala dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo Puntland uu aad u sareeyay wuxuu ku wajahan yahay hadda magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya si mas'uuliyiinta Mareykanka ee halkaasi degan uu u gudbiyo halka uu taagan yahay khilaafka dawladda Soomaaliya iyo Puntland ka dhaxeeya Saciid Dani wuxuu hadda ku sugan yahay dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxa la filayaa in saacadaha soo aadan uu ka degayo magaalada Nairobi si halkaasi kulamo gaar ah uu kula qaato mas'uuliyiinta Mareykanka ee halkaasi degan siyaasiyiin iyo sidoo kale ila wareedyo ku dhow Saciid Dani waxay soo warinayaan in xubnaha halkaasi uu shirka kula qaadan doono ee Mareykanka ka socda ee uu kala hadli doono arrimaha ku aadan wax ka beddelka dastuurka oo Puntland si weyn ay u diidan tahay iyo sidoo kale asigoo soo bandhigi doono khilaafka dawladda dhexe kala dhaxeeya halka uu taagan yahay Saciid Dani xukuumaddiisa bayaano ay soo saartay kadib markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen in 4 cutub oo kamid ah wax ka beddelka dastuurka la meelmariyay wuxuu ku dhawaaqay in aqoonsiga uu kala laabtay hay'adaha dawladda sidoo kale xog kale oo la helay waxay warinaysaa in madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale dawladda Mareykanka mas'uuliyiinta ka socda ay ka wada hadli doonaan xaaladda isbedel ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha burcadbadeedka argagixisada iyo xiisadda ka taagan badda cas kulanka Saciid Dani iyo mas'uuliyiinta Mareykanka ee qorshuhu yahay inuu ka dhaco magaalada Nairobi wuxuu ku soo aadayaa xilli Puntland ay qorsheynayso in loola dhaqmo sidii dalka madax bannaan amba inay ka madax bannaan tahay dawladda dhexe ee Soomaaliya wixii warar ay ka soo kordha kulanka mas'uuliyiinta Mareykanka iyo madaxweynaha Puntland ku dhaxmaraya Nairobi oo ku aadan heerka uu taagan yahay khilaafka kala dhaxeeya dawladda sidii uu gudbin lahaa mas'uuliyiintaasi wararkeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan dhinaca howlgallada haddii aan eegno ciidamo xoog leh oo ka tirsan militariga Soomaaliya waxay ka ambabaxeen magaalada Muqdisho labadii maalin ee la soo dhaafay ciidamadan waxay ku wajahan yihiin furumaha dagaalka ee gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu dhameystiran dhammaan qalabkooda dagaalka si ay u wajahaan deegaanada kooban ee Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe meelaha qorshuhu yahay in ciidankan si degdeg ah ay ku gaaraan oo ay dejiyaan amba ay la wareegaan waxa kamid ah degmadii waayihii la soo dhaafay la dejin waaye ee Runurgood oo dhul kayma amba dhul oo hooda uu ku teedsan yahay Runurgood waxa maalmihii la soo dhaafay isku dhaafayay hadba ciidanka dawladda iyo sidoo kale kooxda Al-Shabaab oo labada dhinac midba markood uu la wareegayay balse ciidankan xoog leh wuxuu qorshuhu yahay in si degdeg ah ay u dhaqaaqaan oo ay ula wareegaan degmada Runurgood iyo sidoo kale deegaanada hoodka ah ee ku teedsan magaaladaasi kooxda Al-Shabaab waxay wajahaysaa culeys xoog leh oo dhinac walba kaga imaanaya waxaana u sii dheer diyaaradaha dagaalka ee dawladda Soomaaliya ka taageera dhinaca hawada ee duqeymo culus la bartilmaameysanayo goobaha lagu tuhmayo in Al-Shabaab ay isku aruursanayaan si ay weerar ugu soo qaadaan xarumaha ciidanka ee deegaanadii dhawaan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab haddii ciidamadan ka baxay Muqdisho ay si degdeg ah ula wareegaan magaalada Runurgood iyo deegaanada ku teedsan waxa adkaan doonto in kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaado magaalooyinkaasi maadaama hadda kooxdu laga celcelinayo in ay la wareegto deegaanka Daarunimca la yiraahdo ee Runurgood hoostaga deegaankaasi dagaal qaraar oo ka dhacay kooxda waxa looga dilay xubno badan oo weerar ku soo qaaday deegaanka waxaana ilaa weli kooxda aan u suuro gelin in si buuxda ay ula wareegto deegaankaasi maadaama jilbaha ay u aasanayaan ciidanka deegaanka iyo kuwa xoogga dalka ee deegaanka Daarunimca ku sugan